kulanti wacan wanaagsan daawadayaal wilhaantii meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa qaranka TV1 waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkan idin heynana waxaa kamid ah xubno kamid ah mucaaradka oo u safray magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyaga oo heshiisyo cusub la galaya dawladda Qatar jilbahana qabsanaya warbixin la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa hadii buunuhu qadaro qodobada kale aad warkeena aad kaga bogan doontaan waxaa kamid ah imaaraadka oo ku dadaalaya sidii qasnada dawladda looga soo saari lahaa lacag gaaraysa 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka oo si sharci darro ah dalkeena ku soo galiyeen dawladda Mareykanka digniin culus ayay u dirtay Ruushka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada min 3 kursi oo ay deegaan doorashadu tahay labadaasi maamul intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada aan idinku soo baahin doono inta aynu ku guda jirno tabinteena tooska wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ee channelkeena qaranka TV1 hadii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo kamid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada hadii jeer sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeena daawade qodob walba warkan kamid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentiga inoogu reeb waa tahaynu ku bilaawno xubno kamid ah golaha isku magacaabay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay u safreen magaalada Dooxa ee caasimadda u ah dalka Qatar sida ila muhiim ay u xaqiijiyeen qaranka TV xubno kamid ah mucaaradka Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa u safray magaalada Dooxa ee caasimadda u ah dalka Qatar halkaas oo ay doonayaan in raaligelin buuxda ay siiyaan xukuumadda Dooxa iyagoo jilbaha qabsanaya shakhsiyaadka toddobaadkan u safray waxaa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo la soo qabtay sawir isagoo raacaya mid kamid ah diyaaradaha Qatar Airways oo soo cagdhigtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde socdaalka qarsoodiga ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ku qotoma dalka Qatar ayaa waxa uu dibadda keenayaa heerka uu gaarsiisan yahay kala taga xubnaha mucaaradka iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo taageero xoogan siinaysay waxna shakhsiyaadkan la sheegay inay si weyn uga gudoodeen isku xirnaanshiyaha ra'iisul wasaare Roble Imaaraadka Carabta taas oo ay arkaan inay tahay fursad weyn oo ay siyaasad ahaan iyaga dhankooda lumi karta oo la xiriirta inaysan helin dhaqaale buuran maadaama Imaaraadka Carabta ay markan gacanta ku dhigtay qayb kamid ah hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya sidaasna ay uga kaaftoomayso xubno mucaarad ah oo ay dhaqaale ku siiso si ay u dhaliilaan amaba ay banaanka u keenaan fashilada ama qorshayaasha kale iyaga aan danta u ahayn Imaaraadka ah oo ay dawladda sameeyso si ay ugu fadeexayaan balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo Imaaraadka Carabta dhambaal dhawaan uga yimid loo sheegay in aysan qorshaha ugu jirin Imaaraadka Carabta ay dhisto balse waxa uu doorbiday markan in uu hayaamo dhinaca iyo dawladda Qatar uu ka raaligelinayo qaladaad door ah uu ka galay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ila muhiim ah oo ka tirsan xisbigiisa waxay noo xaqiijiyeen inuu ku sugan yahay Dooxa balse ay diideen in magacooda iyo codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta waxay dibadda keenaysaa socdaalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee dalka Qatar in markan uu u tafaxiidanayo sidii uu hoggaanka Soomaaliya u qabsan lahaa isagoo oo taageero ka raadinaya dawladda Qatar oo si weyn u dhaliilayay sanadihii ugu dambeysay isla markaana uu ku qeexayay inay tahay dawlad si weyn u taageerta xagjiriinta balse markan waxa uu u muuqanayaa mid garab iyo gaashaan uga baahan dawladda Qatar dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya isla xubno mucaarad ah in ay u safri doonaan magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa waxa ay hadda ka hor ay martigelisay musharaxiin mucaarad ah oo ka mid yahay Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale waxaa dalkaasi gaaray Cabdikariin Xuseen Guuleed oo mucaaradka ka mid ah waxaase wararku ay sheegayaan isla markaana dibadda ay keenayaan in xubnaha Qatar tagay ay iyana suurtagal tahay in ay isbahaysi la sameeyaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo si weyn ugu xiran dawladda Qatar waxa ku soo kordha inay mucaaradka Soomaaliya u kala dhuumanayaan dawladda Qatar warbixinadeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa oo xogaha ka soo kordha halkan ayaan si maalinlaah idinku soo tabin doonaa hadii buunuhu qadaro daawadayaal balse nala socdo kaliya channelkeena subscribe saarta si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran warbixinada xasaasiga ah ee daasoon waan halkan ku soo baahino
markan haddii aynu eegnana dowladda Mareykanka ayaa digniin culus u dirtay dowladda Ruushka iyada oo khilaafka labadan dowladood uu cirka isku sii shareerayo. madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu badbaadinayo Ruushka in uu weerari doono Ukraine, balse waxa uu ka digay in uu Mareykanka uu ka bixinayo jawaab adag oo tijaabada uu Ruushka ku tijaabinayo dowladaha reer galbeedka. Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in Vladimir Putin uu la kulmayo cunaqabateen abidkiis aan soo marin haddii uu Ukraine weerar uu ku qaado. dowladda Ukraine ayaa xiisadan waxa ay kala dhaxaysaa amaba xudunta ay ku haysaa dowladda Ruushka xiisada kala dhaxayso weeyaan. dhankeeda waxa ay sheegtay Ruushka inuu cabsi gelin ku hayo iyada oo ku baaqday in la sameeyo dadaalo kasta oo diblomaasiyadeed si dagaalkan looga baaqsado. xiisada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee uu Ruushka ku daabulay xuduudda Ukraine ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeysay, waxayna keentay in digniino xoogan ay ka soo saaraan dowladaha reer galbeedka, kuwaas oo u arka in khatar xoogan ay kasoo wajihi karto haddii Ruushka uu weeraro Ukraine iyo Ruushka ayaan xiriirkooda wanaagsaneyn tan iyo markii Vladimir Putin uu ku hanjabay inuu cagta marin doono jiritaanka Ukraine. Imaaraadka Carabta ayaa markan dadaal badan ku bixinaya sidii ay qasnada dowladda Soomaaliya looga soo bixin lahaa lacag cadadeedu ay gaarayso 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo si sharci darro ah ay dalka kusoo geliyeen, balse ciidamada ammaanka ay ka qabteen garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa qadka taleefanka kula hadlay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Nahyan, isagoo uga tacsiyay dhibaatadii weerarkii ka dhacday magaalada Abu Dhabi toddobaadkan. wasiirka iyo wasiir dowlaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo muhiimadda labada dowladood u leedahay horumarinta xiriirka laba-geesoodka ah Imaaraadka iyo Soomaaliya. sidoo kale labada dhinac ayaa isdhaafsaday aragtiyo waxtar u leh iskaashiga arrimaha hortobinta leh ee danaha labada qaran, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ugu hambaliyay wasiir dowlaha oo ka mid noqon doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay horaanta bishan. tani markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu raaligelin siiyay Imaaraadka Carabta, waxay sii kordhinayeen xiriirada ay la galayaan amaba ay la soo sameynayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taas oo qorshooda ugu weyn uu yahay sidii qasnada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya looga soo bixin lahaa lacag malaayiin dollar ah oo dowladda Imaaraadka Carabta si sharci darro ah dalkeena ay kusoo gelisay. waxaase mas-uuliyiin ka mid ah hay-adaha ammaanka ay noo sheegeen in Imaaraadka qorshihiisa ugu weyn uu yahay in mar kale dalkan uu qalalaaso cagaha uu u geliyo. waxaase xusid mudan in Imaaraadka Carabta dhowaan diyaaradda ka timid ay keentay Muqdisho lacag kaash ah oo ra'iisul wasaare Rooble kasoo galbiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde oo loo diiday hay-adaha ku shaqada leh xaqiijinta ammaanka iyo hubinta waxyaabaha garoonka kasoo degaya laga hor istaagay in baaris ay ku sameeyaan, sida warbaahinta uu la wadaagay islamarkaana bariisa bulshada buu kusoo daabacay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar Cali. iskastaba haatee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa amar buuxdo waxa uu siiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, taasoo la xiriirtay in wax dhaqaale ah oo Imaaraadka ay leeyihiin aan laga bixin karin bangiga dhexe ee dalka. uu ku amray gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya inuusan qaadan talo ka timid hal shakhsi oo uusan go'aan ka gaari karin, siduu hadalka u dhigay. warqadda ka soo baxday madaxweyne Farmaajona lagu qeexay markii Rooble uu shaaca ka qaaday in dowladdu ay dib u celin doonto lacagtii Imaaraadka looga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde 18 bishii Abriil sanadkii 2018. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday jadwalka doorashada min 3 kursi oo ay deegaan doorashadu tahay labadaasi maamul. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed waa maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa shaaciyay jadwalka doorashada min 3 kursi oo lagu kala qaban doono magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Kismaayo.
saddexdan kursi ayaa waxa ay ka dhigan tahay in doorashada lagu kala qaban doono labadan magaalo mid lagu dhammaystirayo doorashooyinka xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa lagu shaaciyay in maanta oo Khamiis ay bilaaban doonto diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada, halka maalinta Sabtida ahna loo dhaqaaqi doono dhinaca tababarka guddiga iyo soo gudbinta hubinta ergada la soo gudbiyay. sidoo kale guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen in 23 bishan ay ku beegan tahay maalinta Axadda ay bilaaban doonto diiwaangelinta ergada iyo tababarka ergadaasi. ugu dambeyn 24 bisha oo ku beegan maalinta Isniinta ee toddobaadka soo aadan ayaa waxa ay soo gudbin doonaan sida lagu qeexay qoraalkan codsiga iyo diiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay u tartamaan kuraastaasi, iyadoo 25 bishana la qaban doono 3 kursi doorashadooda. kuraasta golaha shacabka ah ee maamulka Koonfur Galbeed doorashada la qabanaya ayaa kala ah Hoob 56 oo uu ku fadhiyay 4 sano ee lasoo dhaafay Maxamed Jaamac Mursal, Hoob 2 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdullaahi Sheekh Maxamed, Hoob 231 oo uu ku fadhiyo 4 sano ugu dambeysana uu hayay Maxamuud Macalin Yaxya. dhinaca kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa soo bandhigay jadwalka doorashada min 3 kursi oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland. kuraastan ayaa waxaa la sheegay in 22 bishan oo ku beegan maalinta Sabtida ah ay bilaaban doonto diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada, halka maalinta Axaddana ay u dhaqaaqi doonaan tababarada guddiga iyo soo gudbinta ergooyinka. sidoo kale guddiga doorashooyinka Jubbaland waxa ay sheegeen in 24 bisha oo ku beegan maalinta Isniinta ah ay bilaabi doonaan diiwaangelinta ergada iyo tababarida ergada. ugu dambeyn 25 bisha oo ku beegan Talaadada ayay sheegeen guddiga ay diiwaangelin doonaan musharaxiinta 3 kursi, halka maalinta Arbacada ahna oo ay taariikh ahaan ku beegan tahay 26 ee magaalada Kismaayo lagu qaban doono doorashada 3daasi kursi. doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada maamulka Jubbaland Kismaayo lagu qabanaya kala ah Hoob 126 oo hadda uu ku fadhiyo Maxamed Xasan Idris Ganey, Hoob 118 oo uu ka geeriyooday Allah u naxariistay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Saqar Ibraahim Cabdallah. kursiga saddexaad 4 sano ugu dambeysay waxa ku fadhiyay isla markaana markan daneynaya in mar kale uu tartamo Cali Cismaan Xirsi. maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay qabtay doorashada 5 kursi oo kamid ah golaha shacabka oo ay deegaan doorashadu tahay Koonfur Galbeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed. saaxiibayaal daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaalida caalamka ah ee channelkeena qaranka TV wanaad ka daawaneyseen waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa inta dib u kulmi doona nabaadiino.